كانوا وها howlgal qorsheysan waxaana si kaashadeedanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ujeedka howlgalkan waxa uu ahaa in laga hortago dhaqdhaqaaqyo argagixisada maalmihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen deegaanka Galgub iyo deegaanada hoostaga hase yeeshee howlgalkan oo si qorsheysan u dhacay saakay waxa sameeyay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka saraakiil ka tirsan xoogga dalka ayaa howlgalkan hogaaminaysay taliya Cabdicasiis Tuure oo ah sargaal ka tirsan xoogga dalka iyo bandulaha qaybta 12aad Saahid Jaamac Jareere ayaa howlgalkan hogaaminayay waxaana u dhacay si loogu talagalay oo qorsheysnaa xoogga dalka iyo kuwa deegaanka waxay sheegeen inay ka hortageen dhagar argagixisada ee maleegaysay kuwaas oo damacoodu u ahaa inay ka geystaan Galgub deegaanada ku xiran sidoo kalena ah goobaha fariisimaha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay ku leeyihiin Shabeellada Dhexe gobolkan waxa furmo dhowr ah oo kaga furan argagixisada meelo badan ujeedkuna waxa uu yahay in la sii ambaqaado howlgalka dhawaan la filayo oo loogu magac daro duufaan kaas oo ujeedkiisu uu yahay in argagixisada looga saaro deegaano ka tirsan Shabeellada Dhexe oo muddooyinkii u dambeeyay si dhuumaaleys ah ay ku timid cali cilmi Shabeellada Dhexe